qaabka ugu wanaagsan ee bisha Ramadaan looga faa'iideysan karo. bisha Ramadaan waxay u baahan tahay diyaar garow iyo ka faa'iideysi. waxaa muhiim ah qofku inuu suxuurto haddii uu doonayo in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u barakeeyo. nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam suxuurta hadday noqoto biyaadka batana ha noqotee maxaa yeelay Ilaahayna wuu ku naxariisanayaa, malaa'igtuna way ku ducaynaysaa. sidoo kale waxaa iyaduna daruuri ah oo qofka muslimka laga rabaa inuu afurinta u dedejiyo xilliga marka afurka ay gaadho inuu markiiba afuro oo biyo ku afuro ama timir ku afuro ama waxyaabo kale oo furuud ah oo cunto fududa oo ku afuro, laakiin waa inuu dedejiyo afurka. waa min as-sunna inaan waswaas ku gelin oo aadan sugin adoo shakisan. waxyaabaha lagaga faa'iideysto Ramadaanta waxaa ka mid ah in dadka la afuriyo. qofkaad afurisid ajarkiisii oo kale ayaad helaysaa iyadoo isaga ajarkiisa waxba laga nuqsaamin. waxaad kaga faa'iideysan kartaa bisha Ramadaan inaad soo cimraysatid. nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam qofka soo cimraysta bisha Ramadaan waxay u dhigantaa sidii xaj oo kale. waxaad kaga faa'iideysan kartaa bisha Ramadaan quraan akhris, tasbiix, toobadkeen iyo in noloshaadu isbedesho aad caadaadkii xumxumaa ee aad lahayd aad ka takhallustid oo aad noqotid qof saalixa nolosha inta kaaga hadhay. nabigu sallallahu alayhi wa sallam waxa uu yiri raqam anf rajul waxaa hoogay qofka ama ninka ama qofka ay Ramadaan u soo gasho ee ay baxdo Ramadaantii isagoo aan loo dambi dhaafin. that means kamu faa'iideysan weey. Allah wuxuu leeyahay ya ayyuhalladheena aamanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladheena min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. waa ayaamo tirsan oo waajib kugu ah. waxaa laga doonayaa in aad soontid bisha Ramadaan gudaheeda inta lagu jiro. waxaynu insha Allah ta'ala YouTube-kan aynu ku soo gudbin doonaa barnaamijyo ku saabsan bisha Ramadaan iyo qisas iyo xikam diini ah si aad u noqotid dadka ay soo gaadho. waxaanu ka codsanaynaa in aad subscribe saartid YouTube-kan oo aad share garaysid si walaalaha kalena khayrku u gaadho, adiguna aad ajar iyo xasanaad uga heshid, annagana aad noo dhiirigelisid. wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.